بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأنا ذين سلامي سلام كبعدي ما أنت وحايدين وذا قصة كصابسن لبروح ومسلمة ووقتي زمنكي خليف عبد العزيز وكدم بي وخليف كشنات نقضي إسلام مسلمك ونقضي وكدم بي أفرت قلاف الراشدين رضي الله عنهما كدم بي sheeko dhacday waqtigaas zamankaas wiil iyo gabar isguursaday sheekadood ayaa noo wadaa maanta asxaabay haddaan magacyadooda noogu bilaabo waxaa waaye wiil la dhaha faaruuq iyo gabar la dhaha suhayla oo aad isku jeclaayeen markaasa ilaahay amarkiis markii ay is arooseen ka bacdi ayaa faaruuq waxaa u soo baxday inuu aado jihaadkii uu u sheegay suhaylo la tashtay iyadan waayahay dhahday waa ku duceeyey kaac nabad ku soo noqo haddaa ku dhimatid meeshan insha allahu jannadan ku kulmi doonaa dhahday faaruuq marka wuu la daardaarmay wuxuu kaga daardaarmay lacag 330 dirham wuxuu dhahay suhaylaay 3 dirham 3 bilood ka bacdi waan soo laabanaynaa sii isticmaal laakiin 30 kun waxaa waaye lacag ammaane ha taabanin ee qaanadaha iskaga jirto waayahay dhahday suhaylana wuu baxay way ismac salaameeyeen dadkii dhinac ka raacay markuu baxay ka bacdi 3 bilood dhamaatay ma uu soo laabanin gabadhii 3 bilood 3 bilood kale 3 bilood kale 9 bilood uuray lahayd markuu asaga baxay way dhashay wiilay dhashay wiilkii haday dhashay 9 bilood way dhamaatay lacagti maxaa la sameynaa suhaylo lacagti ammaanadaheed way la soo baxday wiilkeeday ku korsatay markuu weynaaday 30 kun waxay u dhigmataa la yiri maanta waqti xaadirkan la joogo 2 milyan way gaaraysaa oo lacag walba ha ugu sii badnaato lacagta dollarka adduunka laga isticmaalo 2 milyan oo dollar way gaaraysaa waqtigaas ayadana waqti waxay ahayd oo adduunka ka jirtay dhaqaale fiican oo aad u fiican dhaqaalaha aad u fiicnaa dunida markaas nooc walba oo dunida muslimka iyo dunida kale dhaqaalaha aad u fiicnaa marka faaruuq uu tagay wiilkii ay dhashay wiilkeedii iska korsatay lacagtii way la soo baxday way iska isticmaashay ilaa marka way umushay ilmana way haysataa maxay sameeyeen 3 kun dhamaatay wax la joogi jira wiilkii cilmiyuu bartay علم بدن وبرتي وفيعن ما شاء الله إسلامي سيرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحول بفقيه وحكستا نوع والبا أو علمي أو قرآن كأهرية وبرتي ويلكي علمي وحول نقضي وذات علمي لقى برتو الشيخ عبد الرحمن ابن فاروق لأنها مساجد كاس أصلا في رسالة ولا جوجي wiilka sidii wadaadkii masaajidka u ahaaday marka meeshan wadankan la dhaha China baadiyaheeda ayaa waxaa ka jiray dagaalo oo jihaad muslimiinta ay ka wadaan ilaa jihaadka nin kamid oo dadka mujaahidiinta kamid waxa ahaa faaruuq oon ku dhimanin dagaalkii hore faaruuq 30 sano oo meesha jooga maanta waxa u kaamilsantay 30 sano wiilkiisa 30 jir Cabdiraxmaan faaruuq habeenada kamid asagoo ku jira waardiye oo askarti mujaahidiinta waardiye ka haya ayaa wuxuu ku fikiray inuu xaaska soo tagay faaruuq waana soo laabtay xaaskiisa aad u jeclaa aroosna way ahaayeen uu soo laabmay wuxuu yiri inaan tago on ka warjiriyo waayay xaaskii wuu soo orday faraskiisuu qaatay faaruuq waa orday meel walbuu maray suu socday iraaqu ka soo galay maasha allah madiina dalaq sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ragga hadday jihaad ka imaadaan safar ka imaadaan intaan guryahooda tagin waa inay horta hore masaajidaha tagaan masaajidka ay 2 ragcad kusoo tukadaan soo salaamaan asxaabtooda isa soo arkaan markaasuu cid ku soo laabtay gurigiisa markuu saan u soo galay misana nimaaba uga soo horeeya ninaaba joogaba gurigiisa
wah warwaaya ninkan gurigayga joogo dalaq usoo galay kalarku ku dheg halkaasuu qabta markaasuu yiri yaa waaye ninkan gurigayga joogo maxaa guriga anaa leh war guriga anaa leh war guriga ninka lahaa waani guriga ninka lahaa hataa laisma waraysaninoo saad ku lahaatay laisma dhihin ayagii isku dheganaa jug lagu soo dhahoo la kala qabtay buuqii marka waxaa maqlaysay Suhaylo markaan maamo weyn oo gudaha ku jirta istiri war codkaas waa naqaanaayo codkaas bismillaahi acuudu billaahi min shaytaan rajiim qofkaan u malaynaa muusan ahayn war amuu qofkii ahayn mise waa asaga maya waa asaga waay kollay waan iska fiirin hadduu yahay hadduu ahayn soo qaadatay xijaabkeedii soo xiratay bannaankay u soo baxday way imaaday Suhayla intii saan dhahdaba misana waxaa waayaba Faaruuq iyo wiilkeedii isku dhegan allah ninkan waa Faaruuq war ka taga dhakab waa la isku dhegay waa la is salaamay xaajigeedii Suhayla Faaruuq xaajidiisii salaan markaasaa waxay isdhaheen balkaale gudaha isku waraysanay Faaruuq iyo Suhayla goormaa iskugu dambeysay 30 sano wiilkii uurka asagoo ku jiro uu ka tagay 30 jeer sheekh caalime waa la is waraystay war Suhayla waran bal war Faaruuq waran waa nabad waa saanhay haye Faaruuqoo ani waa ii jeedaa waan duqoobay 30 sano maqneed dar ilaaha ku maqneed waa kan ishaydi waa u jeedaa naga aamuse Suhayla adduunka wax kaa qurux badan ma laha qalbigaad ka qurxoon tahay dabcigaad ka qurxoon tahay waayeelnimo agtaada ma marin gabar fiicanaad tahay waxaan ku weydiiyey lacagtii 30 kun oo dirham walaalay see yeeshay waay 30 kun oo 30 sano laga maqnaa markaasaa waxay tiri adi markaa imaanaysi iyo weyn ogtahay yaa masaajidka ma soo martay masaajidka waa soo maray walaalay maasha allah haye maxaa la kulantay culamaan la kulmay oo kaale arag wadaada dadka siday wax u baraayeen markaa aragta maasha allah culamo yaab lahaan la soo kulmay culamadaas qof ishaada isaas ay u jaleecda oo jeclaatay ma aragtay waay haa wallaahi maasha allah wiil yaroo dhalinyaro sheekh cabdiraxmaan lagu haya arka waay wiilkaas hadda 30 kun ma siisan laheyd waaye ma uga samri lahayd 30 kun iyo ka badanaan siisan lahaa wiilkaas maasha allah wiilkaas ayaa hadee ka waran haddii waa wiilkaada la dhahana waaba kasii darnaan laheyd uu dhahay marka Faaruuq haddii wiilkayga noqon lahaa 30 kun iyo ka badan waaba usii jeclaan lahaaba waa sii siin lahaa Faaruuqoo ka warnay wiilkaas hadduu wiilkaada yahay waaye ma dhici karta wiilkaada waa sheekh cabdiraxmaan adaa dhashay waaye allah orod Faaruuq masaajidka dalaq sheekh cabdiraxmaan anaa dhalayay aniga aabihiis waaye Faaruuq aniga Faaruuq waa maqnaa jihaadkan ku maqnaa hadda waan soo laabtay wiilkii soo istaagay nacam aabahay waa jihaad u jire muu dhimanin miya aniga ma dhimanin waa ikan waa la isku duubsamay salaan maasha allah waa la isi salaamay aabihii wiilkii isbarteen markii hore ay isku dagaalayeen guriga hortiisa ay isdhahayeen anaa leh guriga iyo anaa leh iga soo bax dadkii kala celinayay oo dhadhaxaadinayay waxaa ka mid ah imaamu maalik radiyallahu canhu imaam maaliga ka mid ahaa maxaa keenay meesha imaam maalik waa ardaydii sheekh cabdiraxmaan ibnu Faaruuq ardaydiisu ka mid yahay imaam maalik sheekha caalimka ahaa waad garanayseen oo imaam maalik wuxuu wax ka baranayay wiilkaas yar oo hooyadiis edabta iyo asluubta iyo diinta ay ku soo korisay aabihiisna war ka haynin 30 sano uu ka maqnaa Suhayla 30 sano way iska sabartay way iska fadhiday wiilkeedaas ee u jajabneed oo cilmi bartay cidna kuma kalifin cidna kuma qasbin inay gurigeeda joogto wiilkeeda korsato cid dhahdana malaha ninkaada iska fasaqin ayadana ma ay buuqin buuq iyo qayle ma ay raadinin way sabartay asna Faaruuq jihaad allo dar allo ugu maqnaaye wiilkiisana cilmiyu baranaaye gabadhiisana way samarsaneed cid waxaa waaye marka maasha allah oo ku dayasho wacan oo ku dayasho mudan marka ilaahay waa isu keenay waa kuwa Faaruuq iyo Suhayla mathalan ayagoo isku duqoobay oo is dhaqdeen oo maasha allah isku soo laabteen wiilkoodina uu magac iyo sharaf
culimmada magaalada ugu waaweyn oo laga dambeeya uu noqday. marka asxaabey channelkan hala kala kiciyo, intaas qisadii ku dhammaatay. Subscribe-ka waa xaggiina, like-ta iyo share-ka iyo comment-yada quruxda badan soo qora. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo waqti kale.